allaha u naxariistay waxaa maanta buraha calmiskaada gobolka bari lagu dilay mid ka mid ah saraakiishii ugu waaweyneed Puntland iyo sidoo kale Soomaaliyaba sarkaalka cidda dishay iyo sidoo kale sida uu dhintay ayaa kula wadaagaya iyo sidoo kale warar dheeraad ah oo ka soo kordhay duqeyntii dhawaan gobolka Sanaag loogu geystay mid ka mid ah caaqilada gobolkaasi inta kula wadaagin wararkan oo faahfaahsan waxa ka codsanaya daawada inay YouTube-ka ku soo dhawaato oo subscribe dhahdo muuqaalka la iga saarto gambareelkana furato si ay ku soo gaaraan warbixinada maalinlaha halka ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo Allahu naxariistay General Qaryare oo kamid ahaa saraakiishii ugu waaweyneed ee Soomaaliya marka la joogo Puntland ahaa saraakiisha ugu waaweyn oo hogaaminaysa dagaalka ka socda buraha calmiskaada lagula jiro kooxda argagixisada ee Daesh ayaa maanta ku geeriyooday buraha calmiskaada gobolka bari ee Puntland taliyaha ayaa waxa la sheegay in uu la kacday miino xilli uu ku sii socday ciidamada ka dagaalamaya buraha calmiskaada gobolka bari ee Puntland waxa la sheegay in miino lagu aasay dhulka ayna ku aaseen firxadka kooxda argagixisada ee Daesh uu ku geeriyooday taliyuhu allaha u naxariistay taliyaha ayaa la sheegay in uu dhawaan dhaawac ka soo gaaray buraha calmiskaad isla markaasna loo dhigay dibadda waa sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada difaaca Puntland kadib markii uu ku soo noqday dagaalkii uu soo bogsaday ayaa la sheegay in maanta isagoo ku sii jeeda dagaalkii uuna rabay inuu qayb ka noqdo uu halkaasi ku geeriyooday dad aad u tiro badan ayaa ka tacsiyeeyey geerida ku timid taliyaha oo ahaa lafdhabarta dagaalka ka socda buraha calmiskaada ee gobolka bari ee Puntland sidoo kale wuxuu ahaa taliyaha howlgelinta ciidamada howlgalka hilaac ee lagula dagaalamayo buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland taliyaha ayaa la sheegay in maalinta berito ah lagu aasi doono haddii rabbi idmo magaalada Garowe ee caasimadda Puntland halkaasna ay kaga soo qayb gali doonaan aaskiisa madaxda u sareysa dowladda Puntland iyo sidoo kale dadka kala yimid dalka iyo sidoo kale dibadiisaba sarkaalka ayaa geeridiisa aad loo u taabatay dhammaan shacabweynaha Puntland maadaama uu ahaa sarkaal khibrad ciidan ay ku duugan tahay dhanka kale afhayeenka ciidamada howlgalka hilaac oo maanta isagoo hadlay waxa uu sheegay in ciidamadu ay dardar ka sii qaadi doonaan dilka loo geystay taliya Qaryare waxa uuna sheegay in aysan u ooyi doonin balse u aari doonaan taliyahaas iyo taliyayaashii kale ee halkaas ku geeriyooday dhanka kale caaqil Cumar oo dhawaan lagu dilay gobolka Sanaag ayaa dilkiisii waxa ka soo kordhay warar dheeraad ah BBC Somali oo qoraal dheer maanta barteeda Facebook soo dhigtay oo inay kaga hadlayso caaqilka ayaa waxa ay sheegtay in caaqilka ay beegsatay dowladda Mareykanka waa sida ay qoraalka u dhigeen sidoo kale waxa ay sheegeen in xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo BBC-da la hadlay magacoodana ka gaabsaday ayaa sheegay in caaqilka uu ka tirsanaa kooxda ama aandhehe uu saanada iyo hubka siin jiray kooxaha Daesh iyo sidoo kale al-shabaab labadaba uu siin jiray saanada isla markaasna uu fududeyn jiray dadka u socda labada kooxood waxa sidoo kale ay BBC-du qoraalka ay barteeda Facebook soo dhigtay ku sheegeen in caaqilku uu xiriir la lahaa xuutiyiinta Yemen waa sida ay qoraalkooda u dhigeen sidaasna lagu dilay caaqilka laguna beegsaday waxay sheegeen in caaqilka ay beegsatay dowladda Mareykanka kadib markii arrimahaas oo dhan lagu helay inuu xiriir la leeyahay xuutiyiinta Yemen uu fududeeyo qolyahan Daesh dadka u socda al-shabaabna sidoo kale uu hubka iyo saanada uu waxa weeye u fududeyn jiray sidaas darteed ayaa la sheegay in loo beegsaday caaqil Cumar oo ka tirsanaa oo dhawaan lagu beegsaday aandhehe buraha calmiska buraha aandhehe gobolka Sanaag isagoo oo dhex maraya intaas ayaa kusoo gabagabeynaa barnaamijkeennii halkan